subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo sabtiya bisha abril waa 7 sanadka 2018 waxaad saakiyo caalamka naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika waxaana idaacadda idiin daadihinaya sahre ciidla nuur iyo xuseen barre aadan. waxay uga faa'iidaysan karaan siyaabo badan waxaa ka mid a horta dad badan oo Soomaaliya shaqo abuur bal iyo sameynaysa luqadaha macallimiin badan baa leeyahay iyo dawladdu u baahanaysa oo iskuulada Soomaaliga ka dhiga waxaa kale oo looga faa'iidaysan karaa carruurta ku dhalatay waddankan ayaa la barayaa oo helaya waxbarasho free ah. kaasi waxa uu ahaa Dr. Faarax Sheekh Maxamed oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ee dalka Britain oo ka waramaya shir ku saabsan sidii luqadaha uu af Soomaaligu ka mid ka yahay loogu dari lahaa luqadaha laga aqoonsan yahay dalka Britain. sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan xiisadda ka aloosan baarlamaanka Soomaaliya oo weli ka taagan magaalada Muqdisho. qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan dhegaystayaal warkii dunida. gudoomiyeyaasha labada gobol ee Mareykanka ee Arizona iyo Texas ayaa xalayta sheegay in 400 oo askari oo ciidamada ilaalada xuduudaha ay u dirayaan xadka u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico iyagoo ka jawaabaya dalabkii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu soo jeediyay in kumanaan ciidamo lagu kordhiyo ilaalada xuduudaha. mas-uuliyiinta gobolka Texas ayaa sheegay in 3 cisho gudahood ay u diri doonaan 250 ka mid a ciidamada ilaalada xuduudaha. sidoo kalena barasaabka gobolka Arizona Doug Ducey ayaa jimcihii isaguna sheegay inay toddobaadkan soo socdo dirayaan 150 askari oo ka mid a askarta ilaalada xeebaha ilaalada xuduudaha aan idhaahdee waxaana ay sheegeen in ciidamadaasi loo diri doono xadka ay wadaagaan Mareykanka iyo Mexico. ciidamada dowladda Suuriya ayaa la sheegay inay qaadeen weerar xagga cirka iyo dhulkaba ah oo ay la beegsanayaan deegaanka mucaaradku uu haysta ee Quuta, halkaasi oo la sheegay inay ku dileen ugu yaraan 40 qof sida ay xaqiijiyeen kooxaha xaaladda Suuriya dusha kala socda. wararka lagu baahiyey TV-ga dowladda ayaa laga arkay qiiq aad u badan oo ka kacaya qaybo ka mid a Duuma oo ah xaafadda ugu weyn ee deegaanka Quuta jimcihii shalay. ruushka ayaa sheegay toddobaadkii hore in jabhadda Jaysh al-Islaam ay ogolaadeen heshiis in ay isaga baxaan Quuta oo ay hoy u ah 100,000 oo qof. hase yeeshee bixitaankii ayay ku kala qaybsameen jabhaddaasi Jayshul Islaam. koox xuquuqda aadamaha Suuriya dusha kala socota ayaa sheegtay in maalintii jimcihii la dilay 40 qof oo 8 ka mid ihi ay caruur yihiin. subax wanaagsan khiyaartana dhegaysanaysa ay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. magaalada Muqdisho ayaa saaka ammaanka aad loo adkeeyey iyadoo markii hore la filayay inuu qabsoomi doono fadhiga baarlamaanka ee mooshinka codka kalsoonida loogu qaadayo gudoomiyaha baarlamaanka. habeenkii xalay ahaana waxaa la sheegay in shirar kala duwan ay siyaasiyiintu ku lahaayeen magaalada Muqdisho bal wararkii ugu dambeeyey iyo waxa saaka laga filan karo kalfadhigaasi golaha baarlamaanku inuu qabsoomiyo in kale waxaa khadka telefoonka si toos ah ugu jira wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdiqaadir, haddii aad maqlayso bal waxaad nooga warantaa xaalka magaalada Suudiyey saaka iyo bal arrimaha siyaasaddu halkay marayaan. sahra waa mahadsan tahay. xalay waqtiyo kala duwan waqti dambe iyo waqti horeba waxaa aada u socotay hadalhaynta fadhiga baarlamaanka iyo diyaargarow waqti dambe hay-adaha amniga ay ka sameynayeen wadada Muqdisho gaar ahaan xaqiijinta amniga xarunta golaha shacabka waxaa lagu yareeyo qabsamo fadhiga baarlamaanka. hay-adaha ammaanka gaar ahaan kuwa howlana xarunta golaha shacabka waqti tahaaya lagu wargeliyo fadhiga baarlamaanka ay u diyaargaroobaan amniga baarlamaanka banaankiisa iyo meelaha kale. waxaa ahayd inay sugaan ciidamada ammaanka Soomaaliya halka xarunta gudaheedana amisom inay sugta loo daayo oo sidaas ay xaqiijiyeen saraakiil kala duwan hay-adaha amniga. laakiin
iyo qadar daqiiqada oo aroortii saaka ayaa isbedel ka yimid oo hay-adihii amniga lagu wargeliyey in fadhigii baarlamaanka uu dibudhac uu ku yimid sidaasna waxaa si caadi kusoo laabatay howlihii duulihii caadiga ahaa waxaana baaqday fadhigii go-aan shacabka saara oo wakyar ka hor ama saacado ka hor aan ka wada hadlayna in gaangarowa jiro amniga magaalada guud ahaan tan iyo arbacadii markii la horay weli sida ayay u hogaayeen ammaanka hay-adaha amniga iyo diinta maalasugayid magaalada qaar ifasaadka xoolaha hakad baa ku jiray waxaana xaalada guud ee hadda ay muuqataa mid degan marka laga reebo hadalhaynka siyaasadeeda weli aada ka xoogan oo hadda xaaladu ay tahay mid fadhiga baarlamaanka ee bulshada guud ahaanba uu saameeyey soomaaliya dalka gudihiisa iyo dibadiisana aada looga hadalhayn saaro cabdiqaadirow xalayto waxaa war-saxaafadeed soo saaray iyaguna maamulka ciidamada amisom maxay ku saabsanaa war-saxaafadeedkaasi haddii aada faahfaahin naga siiso amisom aada baa laga hadalaya shalay wakti hore bay u yeereen saxaafadda waxayna ka hadlayeen dabcan xaalada siyaasadeed baarlamaanka gaar ahaan dhanka amniga ka eegayeen madaxa midowda africa amisom franceska dabeero oo weliyaashu ay gaari waayeen halkaasi kadib wuxuu soo saaray war-saxaafadeed wuxuu guud ahaan kaga hadlay doorka amisom amniga soomaaliya iyo waajibaadka saaran ilaalinta madaxda dawladda iyo siday u gudanayaan wuxuuse si gaara u dul istaagay xarunta golaha shacabka ee waxaa kaga aadan wuxuu kusa in amisom mar walba dhexdhexaadnimadooda muhiim ay tahay in amisom in gooniya ku eegi doonto wuxuu sheegay in hay-adaha dawladda ay u dayn doonaan maaragtay arrimahooda gudaha la xiriira in aysan amisom faraha la geli doonin wuxuu soo hadal qaaday xuseyn xarunta golaha shacabka ay dawladda soomaaliya hadday ka codsato ay ku wareeji doonaan arrinta uguweena meesha kuxusan hadii loo hayahay doorka amisom oo ku yeelan doonta xarunta golaha shacabka oo uu sheegay in arrintaas ay muhiim yahay markaa dowladda soomaaliya ay filayaan in howlahaasi gudaha marka waxa aada ugu hayay doorka amisom ee xarunta golaha shacabka waxaa ogeyd in shacabka jawaabi ay amisom si gooni hadday gacanta ugoyso amnigiisa tanna waxaa la hadalaya xarunta waxaa laga yeeli doona laakiin saraakiisha amniga iyo hay-adaha amniga waxay u xaqiijiyaan marka qoraalkii kasoo baxay franceska dabeero in amisom ay xarunta weli gacanta kuhayso saakayna wakti hore oo saqri dhaxaa lagu wargeliy hay-adaha amaan soomaaliya in amniga xarunta gudaheeda ee amisom mas-uuliyad ka saaran amisom loo dayn doono qoraalkii hore iyo hadalkan dambe xoogaa uu farmuudaha marka loo eego oo amisom weli ay gacanta ku hayso ilaalinta xarunta golaha shacabka gaar ahaana waan gartay cabdiqaadir laga hadlayo amisom ayaa weli gacanta ku hayso waan gartay cabdiqaadirow wararka ka soo kordha iyo idaacadaheena soo socda ayaynu dhegeystayaasha ugu soo gudbin doonaa khadka telefoonka oo aan aada saafi u ahayn saaka aawadeed aada iyo aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa wariyahayaga magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho si toosa ugu jiray halkaad naga dhegeysanaysaana waa v o a washington subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a jamhuuriyadda jabuuti ayaa soo saartay sharciyo cusub oo loogu talagalay fududeynta howlaha maalgashiga kuwaasi oo uu socdo wadatashi ku saabsan qaabkii loo dhaqangelin lahaa wariyaha v o eda jabuuti ramadaan muuse ayaa faahfaahinta warkan inoo haya wasaaradda qaabilsan maalgelinta ee dalka Djibouti iyo wakaaladda Djibouti ee kubcinta maalgelinta oo maalmahan ku guda jiray shirar ay ku soo bandhigeen sharciyada cusub ee lagu soo kordhiyay ka ganacsiga iyo maalgashiga Djibouti ayaa ugu dambeyn la kulmay ganacsatada reer Djibouti iyo kuwa ajnabiga ka shaqeystay Djibouti howlahan ayaa ku wajahan dardargelinta iyo fudaydinta arrimaha ganacsiga iyo maalgelinta xogeyaha guud ee wasaaradda maalgelinta ee Djibouti Cabdi Cilmi Ashkir oo loo xil saaray inuu gudoomiye howlahan ayaan marka hore weydiiyay waxa keenay degdegan isdaba jooga loo soo saaray sharciyadan cusub horta anagu ma degdegayno danta wadanka iyaan eegaynaa wixii wadanka dan u iyaan sameeynaa xeerara sanado hore waa la sameeyay maad xeerasha iminkan xeerar jiida la sameeyay oo aan maxay ahayd goortan eegnay dantii wadanka dantii malqabeennada qolkaan eegnay xeerar jiida la sameeyay waxaan wadan kasta ka dhacaweeyaan taabaan de sameeynaa waan waxa maanta u joognaa inaan u macaynaan iyaan u joognaa
waan u macnayn doonaa insha allahna waan isfahmi doonaa. howlahan dib u habeynta lagu sameeyey shuruucdii maalgelinta ganacsiga shuruucdan horta way dardargelinayaan dabcan waa la isla fahmay laakiin waxaa dadku hadal hayaan in lagu diyaargaroobayo koox iman doonta halkan oo qiimayn doonta shuruucda arrimahaas maxaa ka jira hay'adda way jirtaa imanaysa laakiin anaku ma aan sugin imaadka hay'adda shaqada ma qabsanay sidaan de hore baa u sheegay anaku waxaan ka shaqeynaa danta Djibouti iyaan ka shaqeynaa wixii noo dan iyaan sameynaa. gudoomiyaha rugta ganacsiga Djibouti Yusuf Muuse Dawaale ayaa isna iga waramay waxay kala kulmeen arintan sharciyada cusub ee ganacsiga. way fiican tahay doing business waa waxaan ka shaqeysanay waa wixii wadanka aan lahayn waxba u taraya waxaan isleenahay waxba ku soo kordhin karaya wadanka madaxweynuhuna siyaasadiisa ay xagga ugu horeysa kaga jirto waxaan u maleynayaa in shirkan laga xaajoonayay xeerashii uu ansixiyeen golaha wasiiradu ee iminkana baarlamaanka hor yaalla sidii loo dardargelin lahaa dadka oo loo fahamsiin lahaa inay xeerarkaasi isbedeleen oo ay ku wacdi qaataan ama ku wacdi galaan dadka kalena ay intii ka maqan ogeysiyaan ayaan jeclaysanay annaguna qaybteedii baan ka qaadanaynaa waxaan is leenahay hadduu rabbi yidhaaho kol dambe dib ha laysku arko kolka xeerashu ay baarlamaanka ka soo dhammaadaan uu madaxweynuhu qalinka ku duugo ee kolkaa haddeeto loodhanayo way hirgaleen lo odhanayo in dib laysku arko oo wixii xeerare la hirgeliyey iyo wixii lagu soo kordhin kara waxa kale ee xeerare ee u baahan in wax laga bedelo waxay la tahay sharaf baa waddanka u soo kordhaysa siyaasadda madaxweynahana anu waxaan u malaynayaa midaan ahaybaa qayb libaax bay ka qaadanaysaa leesh dadkii shirkadaha gaarka lahaa iyaa ku niyad samaya xeerarka isbedela kuwa dibadda ka imanaya calalahooge laakiin kuwa waddanka degan oo iyaaba iminka iyay dardargelinaysaa oo ku qanacsan. sidoo kale waa kuwan qaar ka mida ganacsatadii ka qayb galay kulankan. Saciid Dalways halkan kulankan waa dib u habeyn lagu sameeyey shuruucda ganacsiga ee jamhuuriyadda Djibouti iyo maalgelinada dadkii waddanka ka shaqaysanayay baa tahay reer Djibouti bal ka warranday sideed u aragtaa. dib u habeynta waa wax muhiim ah in lagu noqdo taxiyashii sii yaalay shuruudihii sii yaalay in dib loo eego markaan ingelinaba la socdo way fiican tahay oo de wixii wadanka ku soo birina lagu adabtay lagu dabaqo de saado arkiisaba waxyaalo badan baa loo dhibiiriyay in baac mushtarka dadku inay soo galaan oo de shaqo abuurku halka uu ka imaaday waxa inta badan baac mushtarka iyo shaqo abuurka sameeyay marka waxa loo dhibiiriyay de waxa la wixii baac mushtar galaya sidii ay u soo gali lahaayeen horta waxaan ka hadlaynay su'aalo iyo sir weydiinay inay kasoo gabagabadii ahayd de bal nin kastaba ra'yigiisa inuu ka yara dhiibtay heedo de bal waxaan la sameeyay ka warama de waxyaalo badan oo muhiim ah ka soo baxeen waxa la sameeyay commission baa la sameeyay oo de private sector kii ka socda publica oo de waxa la wixii markay isqabsadaan la isku qabsado xeer sidee intii tornado isla tagi lahaa si dhaqso loo xaliyo oo de wax muhiim weeyaan oo de anigu sharaf bay tahay maanta in lagu daray saadogtay baan waxaan ka soo shaqeeyay cashuuraadka 12 sano dawladda oo soo shaqeeyay intaan private galin maanta ana dadkii kala jooga marka de wax muhiim salaatahay insha Allah ilaahay hana la qabtee si daacaddeena aan ugu shaqeyno wadankii oo de wadankeena horumar uu siiro dib yara dadkii la soo dhaweeyo dadkeenina lagu tixgeliyay in businesska ay bartaan. Ramadan Muuse VOA Djibouti. subax wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. iyadoo toddobaadkan la xusayay amaba la isku wacyigelinayay toddobaadka caalamiga ah ee wacyigelinta xanuunka autismka oo dhibaato badan ku haya caruur badan oo ay ka mid yihiin caruur badan oo Soomaaliyeed oo qurbaha ku nool ayaa haddaba waxaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka lagu qabtay kulan ay isugu yimaadeen waalidiinta iyo waliba dad loo tababaray in ay waxbaraan caruurtaasi baahiyaha gaarka qaba. wariyahayaga Maxamuud Mascade ayaa arrimahaasi ka wareystay Xasan Cabdikariim Sheekh Xasan oo ah kamida macallimiinta sida gaarka ah loogu tababaray waxbaridda caruurtaasi autismka qaba amaba xanuunada baahiyaha gaarka ah. ujeedada kulankan waxaa weeye walaalle in maaragtay bulshadeena Soomaalida ah loo sheego in maaragtay ay ka faa'iideystaan macnaha waa information maaragtay waxaa waaye kulan ah in information la siiyo
wixii ay ka faa'iidaysan karaan oo ay u baahan yihiin oo la xiriira waxbarashada maaragtay khaaska ah special educationka khaasatan dadka ilmahooda ay qabaan autismka marka waxaa weeye haddii hadalka thiimka aan kugu soo koobo waxaa waa resource information meeting waa gartay dabcan ujeeddada ugu weyn oo laga leeyahayna waxay tahay in waalidiinta soomaalida ah loo tilmaamo jidkii ay ku heli lahaayeen ama waddadii ay u mari lahaayeen barnaamijyada ay dawladdu ugu tala gashay in lagu gargaaro caruurta xanuunka autismka qaba ma sidaaba aad iyo aad waa sidaas weeye waxaan kaloo intaa ku dari lahaa in maaragtay aanu maanta u celebrate garaynayno in maaragtay fandariskii maaragtay badan ay ka soo qayb galeen sida jaamacadda st thomas jaamacadda st davis iyo maaragtay ururo maaragtay ay ka mid yihiin ururka la yidhaahdo maaragtay ay ka mid tahay ururo kale oo maaragtay taageera dadka maaragtay u baahan special educationka waa garta dhibaatada ugu badan oo laga hadlo waxa weeyaan xasanow waalidiinta soomaaliyeed ee khaasatan haysta caruurta qaba xanuunka autismka in qaar badan oo ka mid a ay fahamka xanuunkani siduu yahay uu dhibka haysto sidoo kale qaarkood ay u arkayaan in uu yahay xanuun aan jirin oo mala awaal ku dhisan oo kale hadda kahor barnaamijaan qabanana aragti kala duwan bulshadu ay ka bixinayeen marka barnaamijka noocaan oo kale ama barnaamijyada ay dawladdu ugu tala gashay ee aad bulshada kala hadlayseen faa'iido intee laeg bay waalidiintu ka heli karayaan waxay ka heli karaan faa'iidooyin fara badan tusaale ahaan haddaan ku siiyo faa'iidada macnaha waaridka maaragtay ama communitiga soomaaliga ah ee degan minnesota uu ka heli karo inuu helo macallin afkiisa hooye kula hadli kara waxaa weeye number one wuxuu haystaa maaragtay in halkaa uu ka baxay baahidii dhibka luuqadda number two wuxuu haystaa ardaygii maaragtay inuu haysto qof dhaqankiisa yaqaana oo marka ardaygaasi loo samaynayo waxaa loo yaqaano evaluationka ku salayn kara waxyaabo badan oo faktiska ah marka ardayga la meelaynayo oo loo meelaynayo waxbarashada maaragtay special educationka factor ah dhaqanka ardayga sidoo kale wuxuu maaragtay macallinkaasi uu faa'iido uu u siin karaa waxay tahay waxaa la yihahda advocacy macalliminka soomaaliga ahi waa macallin adiga kuu damqanaya oo maaragtay kuu dhimrinaya marka wuxuu ku siin karaa macluumaad dheeraada adigoo aan weydiisanin ugu dambayntii waxa ugu muhiimsan oo igu maaragtay qaalisan waxay tahay in ardaygaaga uu helayo role moral qof uu ku daydo oo maaragtay macnaha taas ayaa waxay wax ka tiri kartaa xataa ardayga in ay sare u kacdo aqoontiisa waxaan la socdaa in sidoo kale kulanka looga hadlayey arrin la xiriirta in ay jiraan macallimiin badan oo soomaali ah oo hadda jaamacadaha ka soo baxaya oo baranaya waxaan loo yaqaano special educationka ee loogu talagalay caruurta ama autism ku dhacay ama xanuunka dhimirka oo kale uu hayo tira intee lago macallimiina ayaad ku soo qalin jabinaysaan waxaanu hadda jaamacadda aniga ila qalin jabinaya waxaan nahay total soomaalida qalin jabinaysa maarata hadda laysanka qaadan doonta autismka jaamacadda st thomas waa 9 macallin laakiin waxaan rajaynayaa taas waa heerka maaragtay master degree levelka waaye laakiin waxaan rajaynayaa inay hadda jiraan macallimiin kale oo heerka macnaha bajularta ayagana maaragtay ku bartay cilmiga special educationka helitaanka marka macallimiintan ka soo qalin jabinaysa jaamacadaha ee soomaalida ah adigu dabcan aad ka mid tahay ma qorshe ay dawladdu dejisay oo hannaan ay dadka ugu tala gashay soomaalida ah in loo fududeeyo barashadooda ah mase waa wax shakhsiyaadkiinu aad iska go'aansanteen inaad barataan oo kale maya waxaa jiray maaragtay waxa la yidhaahdo incentives ee dawladdu ay samayso sidaa ogsoon tahay waxbarashada systemka america qofku waxaa laga yaabaa inuu helo maaragtay waxa loo yaqaano grants until uu maaragtay ka qaato shahaada bajularta laakiin hadduu u baahdo inuu aado waxaa loo yaqaano graduate school wuxuu u baahan yahay lacag maaragtay ama deyna inuu qaato marka jaamacadda st thomas iyo dowladda federaalka ayaa waxay sameeyeen barnaamij ay maaragtay ku dhiirigelinayaan in la helo macallimiin maaragtay waxaa loo yaqaano teachers of color sidaa darteed waxay bixiyeen waxaa loo yaqaano scholarship kaasi wuxuu ahaa xasan cabdikariim sheekh xasan oo magaalada minneabolis ugu waramayey wariyaha v o eda maxamuud mascade
subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. wasaaradda waxbarashada ee dalka britain ayaa dhowaan qabatay shir ku saabsan sidii luqadaha af soomaaliga uu ka midka yahay loogu dari lahaa luqadaha laga aqoonsan yahay dalka britain. khubradii haddaba shirkaasi ka qayb gashay waxaa ka mid ahaa doctor faarax sheekh maxamed oo khadka telefoonka igu waramay. shirka waxaa hoos ka lahaa wasaaradda waxbarashada qaybo u qaabilsan dadka la yidhaahdo high immigration oo dadka iyagoo aqoon sare dakaatirada iyo macalimiinta waaweyn ee wadamada kale ka yimid ayaa la rabay aragtidooda iyo wax ku saabsan in la ogaado integrationka waxa la yidhaahdo sida la isu dhexgalo iyo waxyaalaha diidan inay dadka isu dhexgalaan iyo dabcan waxaa looga jeedaa inay la farto culturalka. marka waxa asaaska ah baa la yidhi waxa la integrationka ama isdhexgalka mujtamacaadka luqooyinka ayaa kamid ah la yidhi. marka waxaan isaareynay anigu waan isaareeyey dad soomaaliya fara badan baa degan ilaa 200 something kun ku dhadhow sida la sheego. adugu dawladda waxaa u registraysan 75 kun. marka waxay yidhaheen weli arrintaas dad soomaali ahoo miiska soo saaray ma jiro oo si fiican uga niqaashay in luqada soomaaliga ay noqoto luqaadka waddanka laga isticmaalo. haddii luqadaas loo saciyo oo loo magaranaysa la helo oo dawladda ay gaadho in dawladda ay noqoto luqaadka rasmiga ah laga isticmaalo, waxaa dhici karta ayaa la yidhi in dad fara badan oo soomaali ah oo aqoon-yahaniinihi ama kuwa waddanka wax ku bartay ahaado ama kuwa iyagoo aqoon le waddanka yimid inay shaqo abuur xoog leh ka helaan. saas darteed waxay aada u ihtimaam ku siinayeen luqaadka. marka luqada soomaaliguna si gooni ay u siinayeen sababtoo ah waxyaalahan waxay rabaan inay dad badan waxaa jira barta luqada soomaaliga waddankan u dhashay. waxyaalo fara badan bay dadka soomaaliga waddanka kusoo kordhiyeen xagga diinta iyo xagga isdhexgalka iyo xagga dhaqaalaha. dadka soomaaliga dad aada u firfircoon weeye. marka waxyaala business oo reer bay ka bilaabeen. caruurtoodiiba intooda badan jaamacadaha caruurta muslimiinta ugu badan waa soomaali iyo heshiiyaan weeyaan. marka waxay arkeen dadka soomaaliga dad aada nool inuu yahay oo dhaqdhaqaaq badan samayn kara. marka ma la isla soo qaaday qaabka luqadda soomaaliga looga dhigi karo luqadaha rasmiga dalka britain? waa la isla soo qaaday. waxay u baahan tahay inay soomaalidu ay isu taagto oo ay arrintaa ay ka hadlaan oo is-abaabulaan oo ay samaystaan dad u masala ama u hadla oo dabagala ilaa ay ka noqoto taqriiban hadda waxaa la yidhi dad mucayana haddii la helo oo saas oo kale ah ilaa 60-70 kun oo kale in la aqbali karo oo la shuruucda lagu dari karo magaranaysa. mathalan hadda form oo kale markaad buuxinayso wadamadan westernka inta badan waxaa ku qoran ma waxaa tahay European, ma waxaa tahay black, ma waxaa tahay Asian. waxaad arkaysaa hindiga iyo bangaalka iyo bakistaniyiintu way ku qoreen Pakistan baa tahay, ma gaal baa tahay, ma hindi baa tahay. adiga markii lasoo gaaro ma carab baa tahay mise african baa tahay lagu oranaya. way luqada soomaalida ma soomaali baa tahay loo oran waayo iyadoo weliba interestgaasi aan la siinayo. waxay u baahan tahay oo keliya in dad soomaaliya oo aqoonna leh dee luqadana iyo arrintan isu taagay in la helo oo keliya. haddii intaa la helo waxay kamid noqonaysaa luqaadka waddanka laga isticmaalo oo kale noqonaysa ama ka rasmiga. haddii dowladda britain ay luqadda soomaaliga u aqoonsato luqad rasmiga oo dalka ka jirta, sidee bay dadka soomaalida halkaasi ku nool uga faa'iidaysan karaan? waxay uga faa'iidaysan karaan siyaabo badan. waxaa kamid a horta dad badan oo soomaaliya shaqa abuur bal iyo samaynaysa luqadaas oo macalimiin badan baa le iyo dawladda u baahanaysa oo iskuullada soomaaliga ka dhiga. waxaa kale oo looga faa'iidaysan karaa caruurta ku dhalatay waddankan ayaa la barayaa oo helaya waxbarasho firiya. waxaa looga faa'iidaysan karaa oo kale luqada ingiriiska inay tarjamad inay hesho iyada nafteedu oo lagu daro luqooyinka wax lagu tarjamo sida ingiriiska iyo carabiga iyo faransiiska luqooyinka kale caalamiga. marka luqadu waxa weeye waa very important. waxa weeye waa miftaaxa waa mafuraha waxa weeyaan integrationka xaqiiqadii dhabtii uu ku dhici karo. luqadu waxa weeye waa wax xambaarsan cultureka iyo dhaqanka iyo diinta iyo isfahamka waxaas oo dhan. marka haddii luqadeen ay noqoto sida luqooyinkaas oo kale rasmiga sida hindiga, bakistaniga, bangaliga, carabta saas oo kale hadday noqoto sawaaxiliga hadday noqoto waxay noqonaysaa inaynu kamid noqono si xoog le waddankan aan u dhexgalay ay noqonaysa. aada ayuu mahadsanyiinkaasi waxau ahaa doctor faarax sheekh maxamed oo hadka telefoonka magaalada london igu waramiyay. halkaad kala socotaana waa laanta soomaaliga ee v o a. haatana dhinacii heesaha aynu jaleecno fanaanka xabad muuse colaad iyo heestii toosan.
yarlada dhigay xariid togoda buuxdaashay oo tiirsha laamihii dhirto ubax ka soo tuuray oobaantu tuduciyaysato itaxantay rooshaamo oo bilicda taaliyo nimcada oo bilicda taaliyo nimcada laga tegay waayo todobda ay arlada dhigay xareed togaga buuxdaashay oo tiirsha laamihii dhirto ubax ka soo tuuray oobaantu tuduciyaysato itaxantay rooshaamo oo bilicda taaliyo nimcada oo bilicda taaliyo nimcada laga tegay waayo xubna toosan muuqeedanba lagu tibaaxaye quruxdaba tusaalayu tahay dimaa haldhaalaye ka tilmaama qayrkii dalkay toban dhex joogtaaye waa taajirnimadii ifkiyo taajki sharafeedii xubna toosan muuqeedanba lagu tibaaxaye quruxdaba tusaalayu tahay dimaa haldhaalaye ka tilmaama qayrkii lakay toban dhex joogtaaye waa taajirnimadii ifkiyo taajki sharafeedii allow taransanida allow taransanida adaytaada noqotay allow toosanida allow toosanida adaytaada noqotay ibotaada noqotay allow taransanida allow taransanida adaytaada noqotay allow toosanida allow toosanida adaytaada noqotay ibotaada noqotay heeskaasi toosan iyo codka fanaanka xabad muuse colaad ayaan ku gabagabaynayna baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan ileenahay sidaas iyo subax wanaagsan tamashaynta socodkiyo xarago tabu dhaqaaqeeda tabanada labeentii ku taal ee xanfigu taaban waa midaantiin iyo cidhib lahayn xubin la tuuraayo toddobaatan jeer bay indhuhu togasha dhowraani tamashlaynta socodkiyo xarago tabu dhaqaaqeeda tabanada labeentii ku taal ee xanfigu taaban waa midaantiin iyo cidhib lahayn xubin la tuuraayo toddobaatan jeer bay indhuhu togasha dhow